waxa annaga la nagu dilayaa nabaradaas noogu dhacayaan la nagu haystaa waxa weeyaan war maatida maxaysatada ah maaliyadaad ka qaadaysaan masaariifa ka dhigin in iyaga ku soo celiyo waxa nabaradaas noogu dhacayaan la nagu weerarayaan war waa cadaalad darrada dalka ka daaya war waa dulmiga ka daaya war waxa abaartan u dhacaysa waa dulmiga gudaheennaa kuwan cashuurta laga qaado waa tan lagu wata gawaadhida $80,000 marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa isbedel fiican ayaa gacan qaaday nabarrada ii geystay ma goobtii bay kugu dileen marka ay ka heleen mise saldhig baa loo geeyay goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya gaari baa la saaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarra igu dhacay maxay ahaydey sidaasay u dhacday saldhigii baa la geeyay wax dambi oo la igu haysta la iima sheegin warqad la iga soo gudbiyay lama sheegin saldhig waa kee loo geeyay saldhiga quraacdheer baa la geeyay oo bima laga qoray markii saldhiga loo geeyay xataa la iga qoray ma jiro waxaasan kugu haysanaa layma oran dibadun baa la isoo saaro la isoo tuuray haddana saldhiga gudihiisa jirdil miyaa lagugu geystay nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii la qaaday wax hada lama istiraadeen nimankii meesha haystay markii kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa waliba heesahaagana aad baa loo jecel iyo fankaaga laakiin waxa iga yaabay qof ciidankayga oo booliska oo waliba ay garanaya oo waliba heesahaaga waan xiiseeyaa ilaa sababta uu igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiiraysiisay runtii وسؤال لسه نقول دونه سقعت سنة أنا أقول قريم خيس كم فكرة يو واحد شرب غلال كن أو قفوا نبرد أنا جاي يقول دعاء هبين والباقي يقول دعاء يقول كيس يدم بجيسن وحكعت سنة عيدهم كبولسك إن شاء الله مرة بينا نقف عندهم بجيسن أنا نبر بدعاء دول كان لتشيدي وحبا كمان نقارن وقوا جمعها يقدر كساوجت جي يعذر كيسان وان لاحظ الله دبن كيجي وكا عذر كيسان dadku xalay ka madow bay inta badan focus ka saarayeen laakiin dhabankayga waxa saa u galay waa gacan askari weey marka la leeyahay maxaan ku dhahday qaranka iyo muwaadiniinta qaranku wuxuu macna ku sameeynaya marka dhaxdiisa caafimaad iyo nabadgelyo ku haysato laakiin anigu aaba malihi hooyaday agoonnimo igu soo korisay way xanuunsanaysaa muddooyinkii ugu dambeeyayna way bugtay hortayda inta dhagaha la qabtay iyo timaha feerjil lagu garaacay madaxeeda waxaa ka sareeya waa barar shacab ahaan maanta Soomaaliland badbaado ayay inooga baahan tahay ee dawo uma aha durbaana la tumo waxaan doonaynaa Soomaaliland qurxoon waxaan rabnaa Soomaaliland sharciga iyo cadaaladda ay u siman yihiin taajirka iyo faqiirku waxaan rabnaa Soomaaliland aanu dadkeedu kala lahayn darajooyinka lagu kala sadbursiyo ha Soomaaliland taas ayaan rabnaa waxaan xoojinayaa maanta inaanay Soomaaliland u baahnayn durbaana iyo sacab loo tibay xuska 18 May awgii waxaan rabnaa Soomaaliland 18 May loogu dabaaldego isla xisaabtan dalkan inaga ayaa leh badbaado ayuu inooga baahan yahay